السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لواني سلامي channelkay ku xiran channelkayga waa Leila Axmed official asxaabta channelkay ku xiran aad u mahadsantiin ma sha Allah waa idin salaamaya daawateen ilaahayta ii saarteenba aad uga mahadsantiin ma sha Allah soo noqosho labaad anigoo soo noqday please hadaa igu cusub tahay subscribe ii saar like share comment qurux badan ila soo wadaag insha Allah dee waqtigan wax duubay waa habeen in video aan soo gelinaa iyo videogan ba isku meel ayaan ku duubayaa insha Allah caafimaadkiina sidee tihiin insha Allah sida ani wanaagsanahay rajeynaa idinkana wanaagsantiin alxamdulillah ani aad u wanaagsanahay waxaa soo marayba insha Allah hadda alxamdulillah aad u fiicanahay waxaan insha Allah youtube-ka uga maqnaa bishii مدبل عمل واكا مقنا هذه مسكي بال iyo nus meelahaas waa ka baqraay waxaan ku maqnaa insha Allah waa ka hadli doonaa maraan video ka soo duubi doonaa haduu Ilaahay gaarsiyo hada laakiin intaasba uma socdo waxa u socdaa waxay tahay alalaas mabruuk alalaas u socdaa ma sha Allah sida title ku aragteenba horta waxaan mabruuk leeyahay walaalkay liicaato mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ma sha Allah cadawgaada hajabaan leeyahay walaalkay liicaato iyo dumaashideena iyo walaasheena qaalida ah Sumayo oo maanta waxa ku dhahay it's our maya Soomaaliya adin meesheena qatab insha Allah Mareykanku way ka soo baxday mar dhowna waxaan rajeynayaa insha Allah inay is arki doonaan in dadkaas waxa la yiraahdaa lamaana caadi ah waaye lamaana soo jabay soo xkaaray soo bislaaday waaye marka kulay lamaana soo xkaaray soo bislaaday waaye muddo badan ayay soo sabreen muddo badan ayay soo sugeen haddana waxaan leeyahay insha Allah gabari aan wiili caano ilaahay waxaan iga baryayaa inuu inaha sida xurajeynaysa si ka fiican inuu ilaahay nisiyo aroosyada way badan yihiin waxaan arkay cabaalo aadan oo gabar guursaday xaaskiisii hore ka soo tagay 7 ciyaal u haysay wallahi nima waxa waay wiilasha Soomaaliyeed qaybkoodna way fiican qaybkoodna waxa la dhihi karaa aad u dhibaato badan yihiin inkastoo wax walba horta calaf iyo nasiib la dhihi karo iyo wax walba qofka wuxuu u qoro uu marayaa horta inkastoo la dhihi karo laakiin ma qurux badneena isleeyahay qof 7 ciyaal qaba inuusan gabar kale maanta guursado gabar walba Soomaaliyeed marabta laakiin wax walba calafka nasiibka qof walba meesha geeyo lama dhihi karo anaga saas ma aha saas waaysan ma ahan laakiin cabaale aadan cabaale waxa ku dhahay ayba wax looga dhigay degan malcaynaya markii la dhahay roobka caay looga dhigan ku dhahay waxaad faantay Soomaan tii caay ahayd waa lagu salaameen ku dhahay liicatana waxaan ku dhahay sasa salaanta loogu qaaday aan ku dhahay sasa loo kormariyay ma ahan inay kala fiican yihiin liicatu waa legend qofkan waa legend dhaafay cabaale aadan waa fanaan hore fanaan dadka xishmad ku leh laakiin ana gabar baa la jirnaa Soomaa gabar hadii la guursado Soomaali maxaa ku taqaanaa karbaash xalaala anaga dad karbaasheena intaan qof la karbaashinaga karbaasheeno qabow ayaa dhacay anaga agteena qarqariyo waxa ku dhahay marka cabaalaada karbaashka ku socdo iska dulqaato Soomaaliyeed gabar la guursado waxa waaye aabaheedna wuxuu joogaa social media hooyada social media joogta marka ku dhahaysas waxa ka wadaa qof walba u danaanay qof walba la jiro qof walba maxaa la sheeg sida hadda qadar silima oo kale waa aragtay markii la guursaday hodan Cabdiraxmaan tal lagu dhigay sanad i baray ooyneysay sanad i barbaal la watay oo saas loola haystay fahamtay marka cabaalaadana waxa waaye meesha la dhaho lamaanayaasha lala guurka ka imaadayna dee caadi ma ahan hayantan wuxuu ka imaaday fanaaniinta inay laba u guursadaan laba ayadoo tii kan la furin taasna waxa leeyahay mabruuk waa arrin fiican hadiiba tii hore ay raali tahay mid dambe la guursanayo waxa waaye waa okay marka ani maanta waxa ka hadlaa waa laba eray ka hadlaay cabaale aadan number 1 oo leeyahay mabruuk inkastoo aan taageersaneen laakiin maadaama uu walaalkeen guursaday legend u yahay isagana mabruuk aan leenahay bizaadna liicaato waxaan leeyahay rajeynayay waqti badan la sugay inuu arko
xaajidiisa ayadana waxaan leeyahay insha allah safar kheyr qabo ya waxaan rajeynaya insha allah inuu waqti fiican iyo si qurux badan inuu u dhaco is aragtidooda dee waa sugi la'ahay intay iska arkayaan ya videoga waqtigu ni imaanaya waqti is arkeen insha allah video kale waa kasoo sameynayaa liicaato iyo xaajiyadiisa marka gabdhaha Soomaaliyeed xalay ka hadlaa video aan soo galiyay waa Amira aan ka hadlayay ahayd Amira Qurux gabdhaha Soomaaliyeed waxa qaybkoodna waa oynayaan qaybkoodna way qoslayaan waqtiga iska ah ya waqtiga wuxuu yahay qaybkoodna inay qoslaan qaybkoodna ay ooyaan waa wax iska jiro ma fahanteen marka asxaabta sharafta leh ya waxaan ku dhahay videoga like share comment qurux badan soo saara in xogaa jigjiga arkaysi gacanta ku haya waxaan ku duubayo waa telefoon ma ah camera marka asxaabta sharafta like soo saara subscribe dhaha share comment qurux badan iyo soo qora ya commentiyadiina ma arko soo dhaweyntiina ma arko welcome to back Leila soo dhaha insha allah mani arko ya asxaabayani la arko liicaatan waxaan ku dhahay farxadiisa lama koobi karo anagana farxadeen lama koobi karo way walaal nagu qaali ah oo qalbi fiican oo dadka jecel ya waaye laakiin arintiisa markii aniga oo private ka dhigtay aad uga farxay arintiisa wuu qarsaday way Soomaali waa taqaanaade Soomaali hada caan noqotid ya kabta ma hore tuurta hada waa la soo qaadaa ninkii waa hore ku fur waa la keenaa kii hada ku aroos waa la keenaa wax walba wala soo istaajina ya marka Soomaali kaliixna ma ahan adduunweynaha caalamka dadka caanka oo dhan saas waaye ma Soomaali kaliix ah dadka xumana Soomaali la ee tahay dadka caanka oo Bollywood ku jiro dhan saasa sawirada laga dawataa camera laga dawataa albaabadooda la taagan yahay ya dadka caanka albaabadooda ma la taagna anaga Soomaalida laakiin Bollywoodka iyo dadka kale caanka adduunweynaha albaabkooda la fadhiya camera la fadhiya waxyar haday si ka noqda dhag wala sawiro wala geena social media la keenaha ku dhahay marka Soomaali oo malays in Soomaali balay caan ha noqoto balay saan ha noqoto baba marka waa wax iska caadi ah marka maanta farxad caadi ma ahan aad u faraxsana wallahi aad baa uga farxay markaan arkay Soomaaliya sidii u soo baxayso walaalkeed u soo dhaweynayo ehelkeedu ma salaameynayaan aad baan ugu farxay ma sha Allah isna baan ka arkay aad baan ugu farxay anna maxay igu ogtahay gabasaarkayga soo saartay ya maxay igu ogtahay aniga Axmed ya gabasaarkeen soo saartay orad video soo istaagay farxad leela marooya halaas farxadda adduunka le marooya ya waayo waxa filanayna ma ahan mise asugayna Soomaaliya sabahan dadkan waa horaan kala furnay waa horaan kala geynay waa horaan kala aasnay ya hadda isku imaataankooda ma la sugayna sabahan laakiin ani marna wallahi shakhsi barka ka hadlo mar walba dareenkaygu ku jiray in jaceelka dhabta uusan burburin uu jiro faantay labadood bacida la xiriir ma jiro laakiin dareenkayga marna uu ku jiray inay arintooda private ka dhigteen way wixii aqli leh way fikirayaan Soomahan marka waxa leenahay arooska aqalgalka alalaaska ya looma kala harinaan ku dhahay marka gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed walaalaheen ah hadana qaas ahaan walaalkay liicaata walaashay Soomayo waxaan leeyahay arooskiin aroos qeyr qabo ya lejanka kale fanaankeena asagana abaala aadan iyo masarxiis adrishada aroosada ayadana waxaan leeyahay mabruuk ilaahay kan insha Allah wax qeyr qaba lahayn kala siiyo xaajidiis horna waxaan leeyahay sabar imaam dhihi kare qalbiga Allah u qaboojiyo Soomahan ayaantan waxa way socotaa sheekadan waa sheeko socoto waa sheeko looga cabsi qabo ya YouTube-leeda in laba aroosaan waa iska kaftaniya yaa laga xanaaqin dad baa igu soo carari doon yaa naagta waxay ka hadlaysaa ya
dee fanaan kala arksama fanaaniintii labo marka video ugu dheeraaday waxaan leeyahay mabruuk alif mabruuk ayaan leeyahay dee sida iyo mac salaama bye bye is aragta dambe waa xiisa leh